waxaynu u baahannahay dhibaatooyinka ina haya walintooti looma baahna walina anaa talada leh looma baahna war anaa madaxweyne khaatumo u ah war kama maarayno golaha sare ee dhaqanka war caqli maaha baarlamaanku hawshuu leeyahayna waa uga dambaynaynaa waxaan rabaa khaatumo waxaan hadda bilownay wada hadallo hadda dhan walba waa ka rognay oo sidaas si ay dhaantaanu garan weyne war ciddii hadda haysa sidaas si dhaanta hadda weli treenkii ama dhaankii hadda weli ma dhaqaaqin ciddii tala haysay waroy makhaayadaheennan aad mooda internetka inaan loo baahnayn oo war suganba loo baahnayn oo talada aan la isweydiinayn waray aan dib isugu noqonoo tashano war idinkama lihin isimada kama lihin culamaau diinka kama lihin shacabka kama lihin waxaan rabaa caawa war hadhowtaa wixii la doonana la sheegaa war caawa halkan waxaan ka leeyahay war marxalad adag baan maraynaa war deganaansho iyo wadatashi bay inoogu badinaysaa war dadkaa aynu deriska nahay ee colaada xuni ina dhex taallo war inaynu wada hadallo si ay ku dhaantaanu garan weyn war waxaanse u baahannahay war hoy kooxda iyo fardi dhaqaaqaya oo raba inuu danaysto war inaku guul kuma gaari karno war waxaynu xaq u leenahay ma guursan karno haddaynan isu dhammayn haddaynan inaku iswada raacin wixii aynu isku hayno war waa isaga iman karnaa war waa isu baahannahay war hoy wuxuu yidhi saahid qamaan hadda waa gabayaalayaashii ugu horreeyey saahid qamaan rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo taladu meerta noo tahay waray taladan cid male war ma lihin war laakiin intii soomaali waxay tidhaahaa nin hullaad xuni inuu wax qarsanayaad moodaa war qolyaha hullaadta xun ee hadda inagu dhex jira warayaalow tartiib u hullaabto oo aan isu nimaadno oo haddaynu quracaa buuqod la isugu imanayno war diyaar baanaana ku una war haddii aynan intaynan heshiis ciddaan la gelin in laysaga yimaado diyaar baanu unahay war hooy reer keligood roorka u da-ayo oo hadda waxaanba maqlaynaa hadda inayba kan tahay xadiis nabadu waa jiroo ahaa haddaan khaldanayn alxarbu xiila waray dagaalku waa khayaamo waray nimankaas wax allaana waxa ay isku dayayaan dagaal waa eegeena waa ina muquulin kari waaye hadda dhulkoo dhan maaha magaaladan maalmaha kale waxbaan ka sheegay laakiin waray meesha la muquulin waaye ee waxa aynu nahay ee ay tahay inaynu ku dhaadano lehi waa magaaladan iyo dhulkan waxaan haddaba rabnaa qolyahaas hadda waxay leeyihiin oo madaxweynuhu khudbadiisa ku akriyay oo ninka maxamuud xaashi la yidhaaha ee madaxtooyada wasiirka ka ah isagoo reer ula shiraya dadkeena uu yidhi reernimadii iyo wadahadaladii aanu la lahayn albaabkaanu u xidhnay warkaa ma maqasheen war haddaydan maqalla war waa ku celinaynaa waray reer waxay yidhaaheen nama anfacdo kharash badan baa nagaga baxa
markii aanu isnidhaahno waa soo xeroodeen oo waxay noqdeen dad iimaansaday Somaliland war haddana gaalada waxay tidhaahaa shabeelku marabbi ma noqdo hadda libaax iyo dhurwaa iyo dawaco iyo iyagaa tijaabiyey marabbi buu noqdaa laakiin shabeelku marabbi ma noqdo war dadkan Somaliland yadeedinu ma noqonayaan iyana waa og yihiin waxay go'aansadeen inay yidhaaheen waray turubkan aan iska baandhayn inoogu badin weyday inaynu reer u aragno ninna warkiisaba iska daa Saleemaan Axmed Ciise xaggeedu waad ku ogtiin Saleemaan Axmed Ciise wala caawa ceergaabu joogaa hadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahaan talo muxuu weylkayada mithaal uga dhiganayaa war waxaan uga dhiganayaa war wuxuu Saleebaan yeeli kari waayey ee u suurtoobi weyday war nin kaloo yeeli karaana ma jiro war meeshaa looma dhuumaaraysan karo warkaasu soo dhamaa war aan is iimaansanna innaku warsheenna aynu taladeenna u dhabar adeegno isu nimaadno waxaynu ka badin weyno ee aynu la hortegayno ee aynu rabnaa inaynu wax ku goosanno hadda siyaasadda ogaada war waxaad xaq u leedahaa lagaa faramarujiya war meel xaqaagiiba mar hore la qaatay sidaad u soo dhacsataa alisahlama noqonayso war in loo dhabar adeego war aniga kii aani rabini yeelkiis markaase maxan anaa rooga waraydani khaatumay idan baday isimmadeenna ina baday culimadeenna ina baday hadda xuqaasha hadda iyaga kama gudbayo waanaku waayada waxaanuga iswarsanayno waray isimadii waray sidii la rabay hadday u dhaanteen waayeen war armaada xuqaashaa badane oo 100 saayin lehe war armaa laga heli karaa ilaahu ay 20 noqdeen ilaahu ay 50 noqdeen war ciddii maanta tala haysa ilaahu ay Faadima Cabdi Xuseen kaa noqon ama aamina aadan ducaan noqon ama gabadh kale oo intaaba ka dacya oo iskuulka secondary schoolka sanadka dhaxnaan ku jirta hadday caqli iyo sharaf keento war markan waa markii talada la qaadan jiray war markan innakaa talada u baahan inaanu tala wadaag noqonno oo bahasha aanan annaku uqunta iskaga duubinna waa idinka ballan qaadaynaa diyaar baanu u nahay waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa